السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada fiidiyoogii saddexaad oo qaybtii dhexe ee intermediate. Fiidiyooga insha Allah waxaan uga hadli doonaa maxaa la dhahaa what is BIB in forex, sidoo kale losses maxaa la dhahaa what is losses. labadaasaan ku sharixi doonaa insha Allah. sida ugu horeyso BIB mar walba waxaa isha balka waxaa ahaa haddaad suuqan kusii dhex jirtid waxaa maqli doontaa maxaa la dhahaa biib intaasoo biibaa qabtay, intaasoo biibaa khasaare, intaasoo biibaa faa'iiday, suuqa intaasoo biiboo kacay. waa maxaa biib marka? biib maxaa la dhahaa waxaa khasaaraysid iyo waxaa faa'iidaysid. biib maxaa la dhahaa waa unit kaasoo lagu cabiro unit waaye kaasoo lagu cabiro isbeddelka qiimaha price value-ga u dhexeeyo labada lacagood oo isku sarifaysid. laba lacagood ka ganacsanaysaa, tusaale ahaan euro USD iyo euro iyo USD. lacagta yuurada iyo lacagta oo Maraykanka, labadaas lacag qiimaha isbedelay oo ku kala gadatid, qiimaha isku bedelay oo ku kala gadanaysid aa la dhahaa qiimahaasaa la dhahaa. marka qiimahaas maxay noqonaysaa marka haddaad buy u gashay, haddaad sell u gashay, ama faa'iida ku helaysa ama khasaara ku helaysa. marka waxaa ku xisaabtamaysaa meeqa biib oo faa'iiday, haddaa khasaartayna meeqa biib oo khasaaray waaye, ama qiimihii isbedesho lacagtaas qiimihii isbedesho waaye. marka asi musli biibka waxaa lagu isticmaalaa maadaama iyada tahay lacagta afarta decimal. lacagooyinka waa laba loogu kala isticmaalaa musli four decimal ee leedahay oo loo tiriya, kuwana laba decimal loo tiriya, sida JPY-da iyo JPY ama Japanese-ka, lacagta Japanese-ka oo kaleeto iyo kuwaasoo kale waxay isticmaalaan ayaga laba decimal. lacagaha kaleetana musligan waxay isticmaalaan afar decimal. afar decimal maxaa laga wadaa 1 point waxa inta ka soo 1 2 3 4 decimal. kana maxaa marka biibka midka ugu dambeeya biibka laakiin ayagana maxaa waaye boontiga haddii meeshaan la soo maro boontiga dhankan laba xaba le ku yaal, laakiin laba decimal dhankaa ka xigta, laakiin kan maxaa ka xigta afar decimal. marka biibka saasaa la dhahaa. marka inaa akhrisii rabtidne maxaa waaye qaabkii u akhrinaysaa kan ugu shisheeyo waa 10,000 biib. wankan 1 boonti euros lahad meesha aheedo 1 boonti qiimaha maxuu mari waa camal lagu dhahaa 1 boonti 15382 intaasoo mari waa lagu dhahaa. wanka muxuu taagan yahay 10,000 taagan yahay, kan kale muxuu taagan yahay 1,000, kan muxuu taagan yahay 500, kan muxuu taagan yahay 30, kan muxuu taagan yahay 8, kan muxuu taagan yahay boonti waaye biib waaye 0.2 biib 0.3. halkan meesha muxuu taagan yahay haddoo 9 noqdo 9 biib oo noqonaa, haddoo 6 noqdo 6 biib, haddoo 7 biib, kan haddoo noqdo 10 biib 10 iyo something intaa laga soo waxeeyaa loo xisaabay 10. hadda fiir 38 biib oo kor u kacay 1.2. kan oo kaleeto 500 ama 300 ama 400 boqoliyo tiga ma fahanta boqol ka kac ilaa 500 wat, kana kunoo kasii kaca 800 900 ilaa 1,000. kana muxuu gaarayaa 1,000 ilaa 10,000. marka qaabka loo akhriyo here is a bib waaye map to help you to learn how to read bibs. se waxay leed camal kasoo tag. marka maxaa jirta marka bibka qaabkii loo calculate karaa? trade view waa ku geey doonaa insha Allah. trade view markaa ku geeyo waxaa ku tusi doonaa qaabka bibka loogu isticmaalo iyo meesha laga xisaabiyo. ha ku wareerin qayb iyadoo xisaab yar, qayb xisaab yaraa meeshaan suuri almarkola soo galay. so maxaa hadda ka hadli doonaa marka waa biib iyo waxaas waxaa la dhaho. hadda waxaa isla fiiri doonaa insha Allah qaabkii loo calculate karaya biibiska
sidee loo calculate karaa calculation qaabkee lagu sameeyaa hadda kan example 2 waaye example 1 kan nokia example 1 muxuu sheegayaa marka example 1 maxaa soo qaatay 4 dhismaal mid leh 4 dhismaal mid 4 dhismaal leh aa soo qaatay 4 dhismaalkaas maxaa waaye marka USD CAD ama lacagta Mareykanka iyo lacagta Kanadiyaanka lacagta Kanadiyaanka iyo lacagta Mareykanka sidoo kaleeto lacagta markay qaabka u kala horeyso kan maxaa lahaa base kana maxaa lahaa quote ala kala lahaa sidoo sawirkan kugu muujinayo sawira meeshan kugu soo qaado waa kana sawirkan oo kaleeto lacag walbo mideeda ugu horeyso maxaa lahaa JBP USD lacagta Mareykanka lacagta oo Britishka iyo lacagta oo ama lacagta Ingiriiska iyo lacagta Mareykanka kan ugu horeeya maxaa lahaa base currency kan kaleetana maxaa lahaa quote currency yani lacagta ay sidii lacagta kaleeto ku sarifaysid waaye midka ay sidii markaas ugu horeeya so example-keena noo celi example-keena wuxuu sheegayaa marka sidee loo calculate karayaa haddaa calculation haddaa u qaadanaysa qaabkii loo calculate karayaa qaabka loo calculate karayaa maxaa lacagta maxaa la isku kala bedelaa loo dhahaa lacagta Mareykanka iyo lacagta Kanadiyaanka qiimaheeda iyadoo ah 1.0200 1.0200 marka to be read as marka muxuu isku bedela marka 1 bib camal oo isku bedela 1.00 CAD oo 1 USD hal bib oo USD ah iyo ama lacagta Mareykanka ah 1.0200 CAD lacagta Mareykanka marka inaa samaysid maxaa la sameeyaa marka bibiska aa loo qaybshaa qiimaha oo isku bedelay maxaa kuu soo baxaya inta bib oo dhaqaaqay aa kuu soo baxayso marka meeshan wuxuu ku sheegayaa marka sorry marka idimi rabo so marka maxaa la lahay the value change in counter current maxaa la lahaa CAD-kan waa Canadianka times oo lagu dhiftay the exchange rate ratio xaddiga isbedela macnaha qiimaha isbedela isagoo wuxuu la mid yahay bib value ama inta bib oo kuu soo baxay tusaale ahaan maadaama 4 decimal hadduu yahay decimalka bibka kan ugu dambeeya waayaa dhihina soo mahan 1 bib oo macna 4 decimalkana maxaa waaye 2.0001 CAD times lagu dhiftay USD oo 1 iska bedelay loo qaybshay 1.1 ka wax ma bedelaa marka 0.001 loo qaybshay 1.0200 maxaa kuu soo baxaysa marka CAD-kana la isla bixiyaa labadan CAD-a la isla bixiyaa iyo CAD-kan kan iyo kana la isku qaybiya USD soo baxaysa USD equal waxay la mid tahay 1 USD waxay la mid tahay 0.009804 per unit trade will be using this example if you trade 10k unit haddaa ku trade kareyna marka oo USD CAD then 1 bib change to qiimaha wuxuu isku bedelayaa marka 1 bib calaa hal bib walba change wuxuu isku bedelayaa the exchange rate would approximately $0.98 change in the position value qiimaha dhigata macnaha loss size-kana markaan 10k unit-ka iyo waxyaabaha markuu ka hadlaa maxaa marka loss size-ka dhankaasoo fiidiyo loss size-kana tan noogu xiga waaye oo hadda isla videogan ugu hadla we say approximately because at exchange rate changes sababtan waa maxaa siduu isku bedel qiimaha xaddiga qiimaha so does the value of each bib move marka haddoo maadaama calaa bib walba dhaqaaqayo $0.98 bib walba dhaqaaqo $0.98 waaye ama haddaa kor hadduu lacagta kor kuugu aado waa faa'iida qabtaa haddoo mar walba hoos u aadanayd bib walba hoos u dhacane maxaa kaa ku ay ama waxaa ka saaraysaa $0.98 ama 98 senti oo halka doolar maxaa ka dhiman 2 senti ka dhiman macnaha haddaa faa'iidaysana maxaa bib walbo dhaqaaqane isheeg faa'iido ku sacna marka we say approximate because as the change rate changes hadduu isbedelo qiimaha oo xaddiga qiimaha isbedelka hadduu isbedelo oo laysku kala bedelanayo so that the value each bib move walba 1 bib 2 bib 3 bib isku
la isku darsamaya ma fahmi. So example-ka labaad kan hadda muxuu ahaa example-ka ugu hore 4 decimal mid leh kana maxaa waaye 2 decimal. Here another example using oo la isticmaalayo using a currency pair with Japanese yen la isticmaalayo counter currency-geena ah. Counter currency maxaa dhahna lacagtan quwadka ama lacagta ugu dambeysa oo lacagta horeysa lacagta kaleeto ku xigto. Marka noset waxaa ogaataa la dhahaa this currency pair only goes 2 decimal place ay leedahay to measure 1 bit lagu cabiro change in the value. Most of other currency have 4 decimal ay leeyihiin mid hadda soo marayno kaleeto 1 bit move with 0.01 JPY oo noqonaa ama lacagta Japanese yen. The value changing counter currency qiimaha value-ga oo kan isbedela counter currency-gan lagu dhiftay exchange rate ratio oo kan iska bedelo is equal wuxuu la mid yahay beef value-ga ama isha balka inta beef oo dhaqaaqda lacagta ku baxdo kale 0.01 JPY oo halbiki beef oo Japanese-ka lagu dhiftay waa quote currency-ga waay counter currency-ga waay counter currency lagu dhiftay hal JPY ama lacagta pound-ka oo British hal marka wax ka bedelayso marka calaa halka xabo intaana calaa halka bid oo baalka ah ama halka doolar oo kii ah qiimaheedu wuxuu la egyahay laga wadaa macnaha 123.00 oo yen intaas la mid ah camal laga wadaa marka time loo qeybshay waaye loo qeybshay 123.00 JPY haddii la isku waxee JPY-dan iyo JPY-dan waa isla bixayaan wankan wuxuu la mid noqonaa kana loo qeybiyaa yacni xisaabta qaabka xisaabta ahayd saan camal la mid noqonaysaa 0.1 JPY loo qeybshay inta soo dhiganaysaa kanna wuxuu wada qaybiyeysaa kan marka maxaa sameynaysaa 0.1 kan u waxay JPY-dana isla baxayo JPB-dana soo helaysa is equal 1 intaana kuu soo baxaysaa tabaalkii 0.00813 marka waxay la mid noqonaysaa waa in trading 10K-ga JPB JPY each bib walba change value qiimahaas isku bedela oo 0.813 JPB oo lacagta pound-ka ah ama British example marka hataa tagno trade view-ga tegina hal mar trade view-ga hataa tagno maxaa tegina 15 minutes kasoo qabo 15 minutes hataa tagno 15 minutes hataa tagno 15 minutes maadaama taagana waa kana euro USD waaye 15 minutes waaye marka beebka mar walbo maxaa la dhahay labada xabaa lagu marka buy u gelis ama sell u gelis kan buy loo kala oo buy qaabkan u yeelaa kana maxaa waaye sell so marka lacagtan kasoo qabo buy u gelisa intaana ina u raacdi rabtaa buy u gelisa beebka meeshaana laga fiiriyaa beebka waxaa laga fiiriyaa SL-ka meesha ku yaala kan 15.9 beeb oo dhaqaaqa aa la wadaa inta kuwaan dhan waxaan dhan iska dhaaf 15.9 kan kaleetana maxaa waaye 8.6 beeb waaye 8 beeb yacni maxaa laga wadaa inta hataa ka gala suuqa oo korka inta in gaaro 15 beeb camal ah helaa hadduu hoos laakiin aado maxaa khasaaraa 8.6 beeb meeshaana laga waxeeyaa waa kana 8.6 kan kaleetana maxaa waaye 15.9 marka qiimihii oo haddaa sheegayna 1. hadda meeqoo maraya 1.11230 qiimahana haddaa ku waxeyn mar walbana maxaa waaye midka ugu hooseeya ama qiimaha dambeeyo waay hadda tusaale ahaan 4 decimal waaye targetka mujeedado kan maxaa waaye stopska hadduu meeshaan hoos aado khasaaraha inta iga xir waa macnaa meeshaan hadduu soo gaaro qiimaha intaas hadduu la soo gaaro 86 waaye 0.00 kan maxaa waaye 8.6 kan
qiimaha maxaa ku dhihina daay boonti waa sama bont 6 bont 2 bont 3 bont 4 kanna maxaa waa 8 waa 8 bont 6 kanna maxaa waa 0 bont 0 kan meesha markuu imaa marka 10 oo noqonaya sama 15 10 kan ku dar 15 kan kale bont 9 oo noqonaya sama marka biibka qaabkaasa loo calculate karayaa kan noogu xigana muxuu noqonayaa loodka maxaa lahaa lood maxaa lahaa videoga inoo dheeraadaa laga yaabaa asigana laakiin loodka waa bogsiina insha allah mar kaleetana waa dulmari doonaa loodka maxaa waaye loodka horta asiga afaraa loo qaybshaa loodka horta maxaa lahaa lood waxaa lahaa unitka lagu cabiro ama unit emissions kaasoo lagu cabira transaction amount inta transaction oo sameeyeysa macnaha oo suuqa meeqa inaa maalgashato rabtaa intaasoo lacagaa maalgasha rabaa intaa maalgashanaysa ama intaa lacagta gugelaysid waayo afaraa loo qaybshaa marka loodka iyo number of unitka loodka maxaa waaye standard load weyn unitkiisa maxaa waaye 100,000 mini load ku xigo unitkiisa maxaa waaye 10,000 micro load unitkiisa maxaa waaye 1,000 nanona maxaa waaye 100 waaye it means maxaa waaye hal standard load one standard muxuu taagan yahay $10 $10 على halkii laba standard two standard load maxaa waaye two isha baalku waxaa two load maxaa waaye waa $20 three load maxaa waaye $30 four load maxaa waaye $40 kan maxaa waaye minigana maxaa waaye calaa halkii bib wuxuu taagan yahay $1 uu taagan yahay calaa halkii bib muxuu taagan yahay marka minigan maxaa waaye calaa halkii $10 waa unitkiisa calaa halkii $1 wuxuu taagan yahay calaa halkii bib wuxuu taagan yahay $1 laba bib wuxuu taagan yahay $2 kanna maxaa waaye calaa halkii bib wuxuu taagan yahay 0.10 0.10 waa maxay 10 cent waa naanahana maxaa waaye 0.001 waa sentiyaal waa ma fahan 10 cent la hadii shita 30 cent 0.02 0.03 0.0 markuu gaaro 0.1 markuu gaaro micro isbedelaa mikradaas oo soconaya 0.1 0.2 0.3 9 10 markuu gaaro 10 kaas muxuu bedelaa min uu bedelaa calaa halka xabo muxuu u dhigmaa marka waa $1 oo dhigmaa 0.10 isha baalku waxaa ahaa 1 2 3 4 markuu noqdana maxaa waaye isha baalku waxaa ahaa muxuu dhigmaa calaa halkii lood muxuu dhigmaa $10 meeshaan ayagoo kii hadda kuu sheegaya iyadoo lagu sharaxaa meesha ku taala standard load mini load micro load unit load waa kana standard load represent wuxuu taagan $10 bib calaa halkii bib oo dhaqaa $10 uu taagan yahay when using your USD isticmaalaysa base currency ku tahay kana maxaa mini loadkan asi wuxuu taagan yahay halkii bib oo dhaqaaqo waa $1 bib walbo dhaqaaq $1 waaye when using your kan midkan kaleetane waa mid walbo dhaqaaqo waa 10 cent mid walbo dhaqaaqo waa 0.01 cent waaye asigana intaas waaye loodkana qaab loo isticmaalaa jiro ama lagu ogaado inaa loodka inta rabtid oo inaa isticmaashi rabtid ama inta lood oo rabtid inaa ku gashi lacagta intaa rabtid maxaad tegaysaa waxa la dhaho
no way